ninku aad buu u naxay markii uu arkay xaaskiisii uu hadda ka hor guriga ka eriyey iyadoo boqolaal gaari oo raaxo leh u imanayaan si ay u qaadaan. tani waxay ahayd wax uusan weligiis noloshiisa ku fikirin. isagu ma ogeyn in xaaskiisu ahayd gabadha nin aad u taajir ah. haweenaydu waxay dooratay jacayl halkii ay ka dooran lahayd shaqo weyn oo mustaqbal fiican leh. markii ay guursatay kadib waxay nafteeda u hurtay daryeelka waalidka ninkeeda oo aad u xanuunsanaa. maalin kasta waxay qoyska oo dhan u karin jirtay cunto diiran. marka ay dhamayso shaqadaas oo dhan xitaa mararka qaarkood ma helin qaniinyo cunto kulul ah. kadib waxay qaadi jirtay carruurta yaryar iyadoo isla mar ahaantaana bilaabaysa nadiifinta guriga. waxay rumaysnayd in haddii ay noqoto xaas mas'uul ah oo si adag u shaqaysa ninkeeda maalin uun arki doono dadaalkeeda aamusan. laakiin qoyska oo dhan waxay u arkayeen qof aan waxba tarayn. inkastoo ay ka faa'iidaysteen adeegeeda haddana hadallo adag ayay ku oran jireen. maalin ay suuqa u baxday si ay cunto u soo iibsato walaalkeed sare ayaa arkay. waxay rabtay inay iska dhigto inaysan aqoon laakiin walaalkeed ayaa gacanta qabtay. indhihiisa waxaa ka muuqday ilmada wuxuuna sheegay inay aad u dhibtootay. wuxuu ku yidhi haddii aysan markaas dooran inay noqoto xaas guri joog ah booska madaxweynaha shirkadda hadda iyada ayaa lahaan lahayd. wuxuu xitaa sheegay inuusan waqti badan hayn. haddii ay diyaar u tahay inay shirkadda ku soo laabato isla markiiba wuxuu siin doonaa jagada madaxweynaha. markay maqashay hadalladaas haweenaydu ilmada ayay la qarin kari weyday. laakiin si kastaba qoyska dartood ayay guriga ugu soo noqotay. markay guriga gashay waxay aragtay in qoyska oo dhan quraacdeen iyada oo aan waxba looga reebin. kasii daran sodohdeed waxay ku eedeysay inay waqtiga ku lumisay suuqa oo aysan u adeegin qoyska. run ahaantii quraacda ayay diyaarisay ka hor intaan qoraxdu soo bixin. dib u dhac yar ayaa ku yimid sababtoo ah waxay la kulantay walaalkeed oo ay quraacdeedii seegtay. qalbigeedu aad ayuu u xanuunay. ninkeeda ayaa si aan dan lahayn ugu shubay baaquli cunto haray. iyadu waxba ma oran. ninkii ayaa xanaaqay oo baaquligii miiska ku dhuftay. wuxuu yidhi haddii ay rabto ha cunto haddii kalena ha degdegto oo miiska nadiifiso. kadib markuu canaantay wuxuu ku amray inay dharkiisa u feerto sababtoo ah wuxuu la kulmi lahaa macmiil muhiim ah habeenkaas inta aysan bixin. sodohdeed ayaa sidoo kale ku amartay inay miiska si fiican u nadiifiso. haweenaydu waxay u malaysay in carruurteedu u hadli doonaan laakiin qofna dan kama gelin. iyadoo ku dhuumanaysa jikada waxay maqashay gabadheeda oo hadal xun ka sheegaysa. gabadhu waxay tidhi maadaama aabaheed uu si adag u shaqeeyo dibadda hooyadeedna aysan guriga ku nasan karin. kadib waxay sheegtay haweenay kale oo ay sodohdu jeceshahay iyadoo leh haweenaydaas ayaa ka qurux iyo karti badan hooyadeed. cidna ma ogeyn in haweenaydu aysan weligeed joojin shaqada guriga. maalin kasta waxay ku mashquulsanayd qoyskaas aan mahadin. gabadheedu xitaa waxay tidhi aabaheed hadda waa nin guulaystay wuxuuna si fudud u heli karaa gabar yar oo qurux badan. markay maqashay hadalladaas haweenaydii in ka badan 30 sano guri joogta ahayd qalbigeedu wuu qabowday. waxay mar walba ka fikiraysay farxadda qoyskeeda weligeedna nafteeda kama fikirin. laakiin ma aysan filayn in ninkeeda maalinta xigtaba guriga keeni doono haweenaydaas khiyaanada leh. markay aragtay iyagoo si farxad leh u fadhiya sida qoys dhab ah qalbigeedu wuu jabtay. sodohdeed ayaa markaas sheegtay in gurigeeda dayactir lagu samaynayo sidaas darteed ay dhowr maalmood la joogayso. markii haweenayda cusub timid qoyska oo dhan si xad dhaaf ah ayay u soo dhaweeyeen sida iyada oo ah marwada guriga halka xaaskii dhabta ahayd loola dhaqmay sidii adeega bilaash ah. markii hore cunto kasta oo ay karin jirtay ninkeeda wuu ka eedayn jiray. hadda haweenayda cusub ayaa cunto xun karisay haddana ninkeeda wuxuu ku ammaanay inay aad u macaan tahay. taasi waxay ka dhigtay haweenaydii inay gebi ahaanba rajo ka goyso ninkeeda. waxay go'aansatay inay hadda kadib nafteeda u noolaato. waxay wacday walaalkeed waxayna ogolaatay inay 3 maalmood gudahood qabato jagada madaxweynaha shirkadda. laakiin ninkeeda weli wuxuu ku amray inay qolka u banayso haweenayda cusub iyaduna ay balakoonka seexato dhowr maalmood. haweenaydu muran ma gelin. waxay si degan ugu laabatay qolkeeda. waxay diyaarisay waraaqda furiinka waxayna xirxiratay dharkeeda kadibna balakoonka ayay seexatay. markay albaabka furtay qabow aad u daran ayaa ku dhacay. waxay rabtay inay qolkeeda ka soo qaadato buste laakiin ninkeeda ayaa si xanaaq leh u canaantay isagoo leh waxay carqaladaynaysaa hurdadiisa. kadib si toos ah ayuu guriga uga saaray. ma jirin meel kale oo ay tagto. sidaas darteed habeenkii qabowga ahaa oo dhan waxay ku qaadatay jardiin. subaxdii markay soo noqotay sodohdeed waxay ku eedeysay inay habeenkii oo dhan banaanka ku maqnayd oo aysan soo noqon si ay qoyska ugu adeegto. laakiin haweenaydu mar hore ayay ka quusatay gurigaas. waxay soo saartay waraaqda furiinka waxayna ninkeeda ka codsatay inuu saxiixo. ninku xitaa ma dhegaysan. wuxuu u maleeyay inay tahay waraaq caadi ah sidaas darteed si fudud ayuu u saxiixay. haweenaydu waxay qaadatay waraaqdii waxayna ka baxday guriga. ninkeeda weli wuxuu u maleeyay inay xanaaq yar samaynayso. wuxuu si caro leh u yidhi wuxuu rabaa inuu arko sida ay u noolaan doonto iyada oo aan isaga lahayn. laakiin markii uu albaabka u soo baxay wuxuu arkay daraasiin gaari oo qaali ah oo soo gaaraya. haweenaydii khiyaanada lahayd ayaa isla markiiba garatay lambarka gaariga inuu yahay kan gaariga gaarka ah ee gudoomiyaha shirkadooda. markii daraasiin ilaalayaal iyo kaaliyaal si xushmad leh u salaameen xaaskiisa ninkii iyo qoyskiisii oo dhan waxay ugu dambayn fahmeen inay ka xanaajiyeen qof aan weligood ka hor iman karin.